kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan kusoo dhawaada warka Waama TV qodobada aan idinku haynana waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ganacsatada Soomaaliland ka dalbaday lacag 20 milyan oo dollar ah madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash oo ku wajahan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ergadii dhaqanka ee loo saaray khilaafka jabhadda buurta gacan libaax oo go'aan ka soo saaray khilaafka doorashooyinka Soomaaliland qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaa ku daawan doontaan warka Waama TV aan ku bilownay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa u yeeray ganacsatada Soomaaliland qaybaha ugu dhaqaalaha badan wuxuuna ka codsaday 20 milyan oo dollar oo deyn ah taas oo uu ugu magac daray ama uu ku sheegay deyn qaran iyo inay ku keenaan 30 maalin gudahood lacagtan ayuu sheegay in yoolkeedu uu yahay in loo adeegsanayo duulaan lagu soo xirayo xuduudii gumeystihii Ingiriiska madaxweynaha Soomaaliland ayaa sheegay in ciidanka uu jab uu ka soo gaaray hub badan ah laga qabsaday maxaabiistii ugu badnaydna ciidamada Soomaaliland laga qabtay waxa uu sheegay in gacanta ciidamada SSC ay ku jiraan in ka badan 20 nin oo lafdhabar u ahaa aasaaska ciidanka Soomaaliland cidna waxba ma weydiinayso haddii aan dagaalka laga durjin Caynaba iyo og sidaas waxa yiri madaxweyne Biixi oo la hadlayay qaar kamid ah ganacsatada dhul kasta oo dawladda dhexe ee Soomaaliya ay lahayd ayuu sheegay inay xaraashi doonaan si ay ugu galaan dagaalka madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa maalmaha soo socda waxa uu ku wajahan yahay magaalada Laascaanood kadib markii Soomaaliland laga saaray dagaal socday 201 cisho ugu dambeyntii 25 bishan Axmed Crash ayaa noqonaya mas'uulkii ugu sarreeyay ee ka socda Puntland ee Laascaanood taga tan iyo markii 16 sano ka hor laga saaray bishii Oktoobar 2007 ciidamadii Puntland guddiga odayaasha dhaqanka ee ku jiray xalinta jabhadda buurta gacan libaax iyo khilaafka doorashooyinka ayaa go'aan ka soo saaray arrimaha xalintooda ay ku jireen guddiga ayaa amray in muddo 5 maalmood ah lagu kala diro jabhadda isku aruursatay gacan libaax waxaana hawsha qabashadeeda lagu waajibiyay odayaasha beesha Garxajis oo ay ka soo jeedo jabhaddan waxaana ergadani ay dawladda ay fareen in la cafiyo xubnaha jabhaddaasi iyo in doorashooyinka murankoodu sababay saameynta jabhaddan isku mar la wada qabto 13 November 2024 ergadan ayaa kalsooni ka haysatay dhinaca xukuumadda iyo waliba mucaaradka qodobada ergadan ayaa marka la isku soo wada aruuriyo waxa ay soo saareen go'aamo ah sidii ay rabeen mucaaradka Soomaaliland balse xukuumaddu diidanayd warkii aad kala socoteen Waama TV daawadayaal wanaga inta ku kulmayno warka lamid waxay kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qur iyo qoomba waxyeeladii ay geysteen maleeshiyada buurta gacan libaax waxaa bixinaya beesha Garxajis in doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee ku beegnayd 28 December 2023 dib loo dhigo lagana dhigo 13 November 2024 waxaanu si gaar ah uga soo qaadnay sarkaalkii maydkiisa madaxa lagaga joogsaday konton halaad oo ganaaxa oo dheer 120 magtiisa in la isa saaro doorashada madaxweyne ku-xigeenka iyo doorashada ururada iyo xisbiyada siyaasadda lana qabto 13 November 2024 iyaga oo isku sidkan